wardegdeg ah oo saacadihii dambe ee xalay soo saaray command postiga ciidamada difaaca Tigreega ayaa waxaa lagu sheegay inay ciidamada difaaca Tigreegu guulo farxadeed oo waaweyn ka soo hooyeen howlgalka lagu magac daray iftiinka cadceedda kadib howlgallo ay sameeyeen muddo 3 bari gudahood ah oo ay ku burburiyeen waa sida ay sheegeen 6 division oo ciidamada Abiy ka mid ah iyo 11,000 oo maleeshiyad iyo liyu boolis isugu jiray kuwaas oo loo soo diray way dhaheen inay dib u qabsadaan magaalada Dabratabur iyo Maarsa iyagoo ciidamada Tigreegu isu qaybiyay 2 aag oo ka sii diyaar garoobay weerarada ku soo wajahan maadaama ay xogta hayeen sidoo kale wuxuu command postigu intaas raaciyay inay ciidamada difaaca Tigreegu digada iyo dambaska ka dhigeen hal commando division oo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ah iyo 3,000 oo ciidamada ilaalada qaranka ah oo loo yaqaano Republican Guard kuwaasoo loo soo daabulay inay magaalada Maarsa iyaguna dib uga furtaan ciidamada Tigreega waxayna sheegeen inay u geysteen ciidamada Abiy jab weyn oo aan marnaba ka soo kabasho lahayn iyo in wixii intaas soo raacay ay ka dhigeen wax firdhaday iyo waxay gacanta ku dhigeen oo ay barakaysteen iyadoo aysan meesha ka maqnayn inay ciidamada Tigreegu ka furteen ciidamada huwanta ah hub iyo saanad ciidan oo aan cadad lahayn command postiga ayaa waxa kale sheegay in markii ay ciidamada Tigreegu ka baxayeen magaalada Gaashina ay uga baxeen istiraatiijiyad xeelad dagaal maadaama ay ka warhayeen ciidanka iman doona inuunan helaynin meel uu ka baxo dhan kastana magaalada laga hayay isla markaana ay ka xidheen jidkii ay ka soo galeen ሰበር የድል ዜና ጀግናው ሰራዊታችን በዘመቻ ፀሐይ ጩራ የጀመረውን መጠነ ሰፊ ማጥቃት ለመክታት ጠላት ሰፊ ርብርብ ሲያደርግ ቆይቷል። ጠላት ሰፊ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቶ ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ በብዙ ፉከራና ረጎራው ታጅቦ ደብረታቦር አካባቢ የደረሰውን ሰራዊታችን ከጀርባው ለማጥቃት ከደሴ በኩታበር ወልግጤና ኮን በኩል በወልዲያና ወረታ መካከል የሚገኘውን የሐሙሲትና ጋሽና አካባቢ 6 ክፍለ ጦሮች 11,000 ሚሊሻዎችና ልዩ ኃይል በማሰማራት ሰራዊታችን ለሁለት በመቁረጥ ለማጥቃት ሞክረዋል። በሌላ በኩል በደሴ መስመር በወልዲያና መርሳ መካከል የሚገኘውን ሰሪንቃ የተባለውን ቦታ ቆርጦ መርሳ ላይ የነበረውን ኃይላችን ለማዋጥ ተንደርድሮ የመጣው የፋሽስቱ የአቢይ አህመድ ከ3000 በላይ ሪፐብሊካን ጋርድና አንድ ኮማንዶ ብርጌድ በማሰማራት የሞት ሽረት ርብርብ ሲያደርግ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ጀግናው ሰራዊታችን ከነሐሴ 13 እስከ ነሐሴ 15 2013 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ድረስ ባደረገው ተከታታይ ጸረ ማጥቃት በሁሉም አቅጣጫዎች ተንቀሳቅሶ የነበረውን ቆሌው የተገፈፈው የፋሽስቱ የአቢይ አህመድ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ እንዲደመሰስና እንዲበታተን ሆነዋል። ቆረጣ የሚባለው ወታደራዊ ስልት ሲባል የሰሙት ቅጥረኛው የአቢይ አህመድ ጀነራሎች ሰራዊታችን ለመቁረጥ ያዘመቱትን ሰራዊታቸው ለራሱ ተቆርጦ መውጫና መመለሻ አጥቶ እንዳልነበረ ሆነዋል። ጀግናው ሰራዊታችን በሚገርም ጥበብና ጀግንነት የጠላት እቅድና ፍላጎት በአስተማማኝ ደረጃ እንዲመክንና ከንቱ ሆኖ እንዲቀር ከማድረጉ በላይ ለቀጣዩ ስራዎቹ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥረዋል። በዚህ ዘመቻ የተቀዳጀው ድል ዝርዝር ሪፖርት በመጪው ቀናት እንደሚገልጽ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ገልጸዋል። ክብር ለዚህ ፈታኝ ጊዜ በአስገራሚ ጀግንነቱ ተአምር እየሰራ ላለው ለጀግናው ሰራዊታችን የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ነሐሴ 16 2013 ዓ.ም ትግራይ